jasiiratul aswad black island jasiiradii madoobay jasiiradan waxay ku taallaa waqooyiga talyaaniga jasiiradan waxaa degay ka soo baxsaday waddanka talyaaniga waxaana lagu magacaabaa reer berber markii ay yimaadeen reer berber jasiirada gebi ahaanba jasiiradii jawigeedu waa isbedelay waxaana isku bedeshay dhiig iyo dagaal badan waxaana dagaalkaas dhex maray reer berber iyo talyaaniga dadka dhintana laba mid ayay ku sameyn jireen way aasi jireen ama way gubi jireen sidii dadkii u gubayeen jasiiradii 50% waxay isku bedeshay wada dambas meedhan waxay saa noqotaba xaaladuba waxaa jasiiradii soo darisay abaar kulul waxaana reer berber danta ku qasabtay in talyaaniga isku dhiibaan oo dib ugu noqdaan dalkoodii saas ayay jasiiradii ku noqotay meel lama degaan oo la manduucay in la galo meeshaas oo la soo booqdo xitaa laakiin dadka u dhow jasiiradaas waxay sheegeen inay ka soo yeedho oohin iyo qaylo iyo jilis joogto ah hadalaas ay sheegayaan qaar way sahlayeen oo waa la rumaysan karaa halka kuwa kale ay ka fog yihiin runta jasiiradaas xataa aan lama gelin sababtoo ah waa meel baqdin iyo naxdin badan leh intaas ayuu maanta barnaamijkeena ugu eegyahay inta ku kulmana barnaamijkan barnaamijka waxaan naga tagnaa sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh sidoo kale ay looban inaad kookan aad subscribe saartid si aad u hesho muuqaalo badan hadda subscribe dhe oo ka mid noqo kumanaanka qof ee ku xidhan channelkayga Xamse Jooqane nagu soo bir caalamkan cusub adoo ka faa'iido doona xogooyin iyo dhacdooyin la yaab leh